Maamulka ugu sarreeya kooxda Somali Fruit ayaa xalay u sameeyay kulan casho oo dhiirigelin maadaama ay shalay 4-0 kaga adkaadeen kooxda Hilal FC. Kooxda Somali Fruit ayaa u baahan hal dhibcood oo kaliya si ay ugu soo gudubto horyaalka heerkiisa labaad ee Soomaaliya. Maamulka ugu sarreeya kooxda ayaana xalay u sameeyay casho dhiirigelin. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay macalinka hogaamiye kooxda oo sanadkan wax badan ka bedelay. Caawa waxaan halkaan u joognaa casho ay u sameeyeen maamulka kooxda Somali Fruit cashadaas oo ah dhiirigelin oo abaalmarin ay la socoto waxayna u sameeyeen ciyaartooydooda maadaama ay galabta guul weyn ay ka gaareen dhigooda kooxda Hilal kooxdan Somali Fruit waxay u soo diyaar garoobeen muddo ay tababar u waday in ay ka qayb gasho tartankan Serie C-da si ay u timaado Serie B waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa gudoomiyaha kooxda iyo maamulkiisa oo ciyaartooyda ku dhiirigeliyo mar walba markay ciyaarayaan dhiirigelin fiican siiyo markay baraajo ay galaan sidoo kale maamulka sanadkan isbedel fiican ayuu ku sameeyay dhinaca tababarka ay maalin walba ay joogaan maamulkii markii la ciyaarayna ciyaartooyda mar walba dhiirigeliyo wax walbana u qabto marka aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa maamulka oo uu sareeyo Xasan Meykal. Dhan kale gudoomiyaha kooxda Somali Fruit ayaa hadal kooban goobta ka jeediyay. Aniga gudoomiyaha naadiga kubadda cagta Somali Fruit Football Club waxaan naadiga waxaan u subiyaa casho maadaama galabta horyaalkan dheelna Division 2 aan dheelay waxaan u sumeeyay ciyaalkeena niyadan qudhiso inay horyaalkeena sanadkan inay kaalin fiican ka soo qaataan maadaama naadiga marka hore dheeli jireen si horyaal hore soo dheeleen 2014 sanadka insha Allah sanadkii hore soo u dheeleen hadda sanadkan u dheeleen aan jeclahay insha Allah waxaan jeclahay naadiga horumarka hadda wadaan inaan laba jibaar saddex jibaar aan soo suubiyo insha Allah haduu leen gaarsiyo tan kale waa ciyaartooyda waxaan mahad celinaa maadaama shaqo qabteen anigana insha Allah waxaan jeclahay shaqada qabteen shaqo laba jibaar inaan u qabtaan aan jeclahay insha Allah. Somali Fruit ayaa ka mid ah kooxaha taariikhda ku leh heerarka kala duwan ee horyaalada dalka.